marna waxaanu inta badan wada soconay wasiirka biyaha markii dambana waxa waqtiga ugu dambeeyay xudun ay ku tugnay hogaaminaya wasiirka madaxtooyada waxyaalaha soo dheer waxay u daaranaayeen oo kulgalka deegaanada iyo sida ay ugu soo xidhan lahaayeen maamulka Soomaaliland inta aan garanayo siyaasadda Soomaaliland ku jirana waqtigii deegaankaas ugu dhawaa ama ugu fiicnaa inuu ka mid noqdo ama ku soo biiro codka bahda cod bixinta Soomaaliland taasoo aan isleeyahay runtii muddo dhowr iyo 20 sanadood aan joogay Soomaaliland ama siyaasiga ka ahaa oo waqtigii ugu habboonaa ama waqtigii ugu fiicnaa ee aan dadka ku arkay inay diyaar u yihiin inay ka mid noqdaan bulshada Soomaaliland xilligan deegaamada dadka geeyay ee dhibaatada ka dhacday sida looga hawlgalay inta ay wax marayaan deegaanka dawladdu talaabo loo baahnaa bay qaadayaan ku amaanaya xukuumadda markay arintaas markay soo baxdayba waxaa loo diray ciidamadii qaranka ee joogay deegaanka intii ciidamadu tageenna si fiican baa loo xakameeyay dadku waa dad deegaanka wada degan oo tuulooyin badan iyo deegaano badan kale wada degan laba nin oo laga yaabo inay baadiye iska helaan ciidanku geed kasta hoostiisa isma taagi karo laakiin almost ciidanku intii la rabay awood ahaan wuu xakameeyay dagaalkaasi inuu dib u dhicin ciidanka iyo xukuumadda labadaba waan ku amaanaya talaabada ay qaadeen ay ku xakameeyeen dagaalkaasi inuu sii socdo marka imka xaaladdu aad bay u fiican tahay aad iyo aad bay u fiican tahay waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa runtii dadka deegaanada ku nool oo aan garan karo dagaalku dhibta uu leeyahay horaa loo yiri dad badan baa yiri ummad badan baa tiri oo iska diiniyeen in qofku uu faradal kifaayaha iska rido waxaan idin leeyahay dagaalka jooja oo ha loo soo noqdo hana la wada yimaado miiska wada hadalka sidii Soomaalidu ku xaajoon jirtay marka ay waxaas oo kala dhacaan خير كسته هو قاسم ويان لصي ترمين ليجا كدادنا وقتها يبش بركة سنة إلى هاي أمديس وكنا معيستين خير كإيو برواقضة إي أشرك يان ليجا دادين المسلمين هلا قولوا ما يسيدي صومالي دقن كوا هيدو وحد عواد ميسك على صوفر استو هلا ولا حلو بقى مسرور الشيء يعني على خليفي يقرأ شعب كتب بيان العلاقة كسرنا سين تيجان كاسي لو ده نحتاله هذا أرنتها وحبك بتشريان رنتي قرأت عني كي مركان نبدأ وذي جيل وريتشري يبغاها من جيل وريتشري يو مكتب بحنا يا دجال بوضع عيد أوران كرتها متشتو أرمها وحن قبائلنا أرمسي قبيل لكن كصومالي الريرو تسكيل هي كوب العامي يسافرون وين كوب العامي لكن هذا عيد له آدية وأرين مدرسة سعتي عيد عن كو آدية أنا متشتو وحنوليه هلا تشوتشيو هنا لا قبوتشيو سيدي سومالدو واستعمال جدي مركب دبتها السدعة أمر تذكر رقم كأوله هنا هلا وصل ولي مسؤول مودك تسلم قاعد ها ولا وزير هذا waxaa tagay cali sanduulla tagay intaan garanayo waxaa tagay xagla toosiye waxaa tagay wasiir dawladda amniga rag badan baa jooga iyo saraakiil sarsare oo ciidamada Soomaaliland ka mid ah haday biliis tahay iyo haday tahay military marka waxay la diyaar u yihiin inay xakameeyaan dhibta aad iyo aad baan noogu mahadnaqaynaa cid kasta oo dhibta ka qayb qaadata waxaan kaloo halkan runtii mudan inaan ka hadlo deegaanada aanu ka nimid ee fuuda isaga daba noqonay muddada hadda 45 casho ahayd waxaan u malaynayaa gaari iyo guri magaalada ku jiray arrimahaas oo dhan waxay hadda u egyihiin kuwa guul u soo hoynaya Soomaaliland cid kasta iyo waqti kasta waxaan halkan ammaan sharaf leh ammaan bogaadin iyo karaamo leh uga soo jeedinaya wasiirka madaxtooyada oo runtii ku dhiiraday deegaanada aan hore wasiirada tunka waaweyn u tagi jiray ama haddii ay tagaan si galab oo galabka carraawa inta duur istaagaan duur ka soo dhaqaaqi jiray laakiin waqtigii ugu dambeeyay oo nala socday degmadaanu tagnaba haday xudun tahayba intaanu seexanay oo dadkii deegaanka uu aad u arkay oo uu dadkii nala wada arkeen isaga iyo wasiirro kale wasiirada ay ka mid yihiin cadaan iyo ninka la yiraahdo cali reegal iyo
runtii wax ka bedelaan qaabkii hore ummaduna aad iyo aad bay ugu farxaday in dawladdu dadkeeda ay la seexato oo la joogto waqti dheer oo aanay hore Soomaaliland uga dhici jirin marka wasiirka oo geesinimada muujiyay oo dadka aad moodid inuu fahansan yahay waxa ay u baahan yihiin aad iyo aad baan u amaanaya runtii guulaha uu ku gaaray inuu deegaanada waqti dheer joogo seexdana soona ogaado xaaladaha dadkaasi ku sugan yihiin waa tallaabo uu hore u qaaday waliba dadka beesha dhexe wasiirada tunka waaweyn ka soo jeeda awal meesha galab bay ku tagi jireen oo anagana loo ka bixi jiray laakiin isagu uu seexday oo uu jiifsaday oo uu ka soo toosay oo dadkii deegaanka ayuu reer iyo qof ula kulmay taasina waxay ku tusaysaa madaxweynuhu inuu tallaabo rasmiya oo isu soo dhawaansho uu qaaday markuu ka wasiirka madaxtooyada ka dhigay maxamed xaashi cabdi aad iyo aad baan u mahadinayaa anigoo aan nin hore sidaad iga barateen aan cid ammaan badan ahayn laakiin waxaan ninka wasiirka u amaanayaa maanta waxa weeye wuxuu fahmay xaaladda dadka deegaankaasi ku sugan yihiin